kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo haldoorka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa mid ay uga hadlayeen farigelin ay sheegeen in lagu hayo xafiiska xisbiga kulmiye ee gobolka Sool waxayna ugu baaqeen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye inuu xafiisku helo xuquuqdii uu lahaa sidoo kalena odayaasha iyo waxgaradkan ayaa sheegay in xisbiga kulmiye uu u matalo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Xuseen Aadan Cadde isla markaana ay u daba fadhiyaan arrimaha xisbiga waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaan halka u fadhinaa wixii aan kulmiye ka tabarinay inaanu halkan ka sheegno madaxdiisa waxa ugu horeysa halkan gobolka Sool anagu haddaan nahay waxaan u aqaanaa inuu madax xisbiga nooga yahay Xuseen Aadan Cadde sidaa u leenahay magacaabid buu sameeyey gabadha niman kale oo xisbiga ka mid ah ayaa hawshiisii ka hor taagan oo u diidan Xuseen xisbigiisa iyo gudoonkiisa iyo magacaabidiisa ilaa saas waxaan leenahay faraha kala baxeen madaxweynahana saasaan u sheegaynaa in la madax baneeyo gudoomiyaha gobolka Sool ee xisbiga u fadhiya Xuseen Cadde naloo sheegaya xisbiga markaan aragnay madaxdiisa wax xuquuqa oo ay helaan inay jirin madaxweynuhu miyuu gacmuhu ka laabtado mar rabo gobolkan hana loo cadeeyo sida daraadeed waxa weeyaan waxa halkan ka muuqata shaqadii uu lahaa ee gobolka ee xisbiga in lagu haysto oo ay ku haystaan ina Cabdi Dheere iyo ina Kaahin iyo niman goboladoodii waxoodu u socdaan waxaan leenahay madaxweynaha waxaan xaq u leenahay Xuseen baanu kala xidhiidhnaa Xuseen baan ka wakiila Xuseen baan matala xisbi ahaan iyo qabiil ahaanba markuu runtaan ku sheegno waxa kale meesha yaal waxa weeyaan Xuseen de warqadu soo gabadh buu soo magacaabay mar haddaan ninka warqadu soo magacaabay aan soconayn oo aanay dakhli lahayn oo aanay kharash lahayn oo aanay xafiiskii lahayn oo aanay kiradii lahayn de waxa weeyaan waa waraabtaag wax magacaabis maaha dadku waa beelo Soomaaliland cid waliba meel bay joogtaa nin waliba meeshiisa in lagu tixgeliyo lagu ixtiraamo weeye waxaanu leenahay arinta aad iyo aad baan uga xunnahay waa in loo madax bannaani ayaa gobolka iyaga wararka nagu soo dhacaya kuwa aan raali gelin weeye waa kuwa aan raali gelin gobolkan xisbiga wakiil waxa oo u matala Xuseen Aadan Cadde waxa uu xil saarayo gobolka soo xil saarayo isaga anaga noo mas'uula cida uu eriyay isaga noo mas'uula budgetka ama yaani dakhliga ka xisbi ahaan gobolkan xaq u leeyahay waxa nooga mas'uula Xuseen Aadan Cadde anagu isagaanu dabanaa Allah halkan gabadh buu soo magacaabay gabadha uu soo magacaabay hawsheedii bay qabsatay hawsheedii bay haysataa waa la soo hafray dakhli lagama soo daba dirin kiradii baa lagu leeyahay ma yaani dakhligii gobolka wax ka soo gaaray ma jiraan mana qabna in Xuseen Aadan Cadde wax ku xidhan yihiin waxaanu qabnaa in si kala yihiin oo si kala loogu fadhiyo waxaan leenahay haddii asluuxna laga rabo haddii nabadgelyana laga rabo haddiina laga rabo inaanu xusbiga taageero ummadda xusbiga taageero Xuseen Aadan Cadde iyo xaaladiisa faraha lagala baxo gobolkana isaga u xil saaran isagaanu anagu rabnaa odayaasha hore sida ay yiraahdeen ayaanu ku goonaa dhamaantayo waxa weeye ninka xilka uu leeyahay haddaanu madax bannaanayn ee la yiraahdo waa warabowtaa kursi iska fadhiiso adigu xisbiga halkaas ku magacaaban tahay shaqadiina aanu qabanaynin waxba maaha waxaan leenahay si odayaasha hore sheegeen Xuseen dhulbahante waa xubinta u joogta xisbiga isaga metela isaga la daba jooga isaga wixii dhiba oo ka jiro gobolka iyo dheefaba anagu isaga kala xisaabtamayna ina kaayna ismaan Cabdullah ismaaragno laakiin Xuseen baan la xisaabtamayna Xuseen haddii aan waxba haynin haska yimaado ka soo baxdo Hargeysa baa loo baahan yahay gabadh budgetka la yeeray xisbiyada goboladu way qaataan garan maayo de waxa calaamada gaarka gobolka loo saaray way qaataan laakiin gobolka Sool xisbigi waxba ma helaan guriga baa lagu leeyahay kiradii baa lagu leeyahay kuraas ma haystaan I don't know inay iska xidhayaan baan malaya near the time xilli dhowba haddii aan waxba laga bedelan arinta hadalka ayaan ku dheeraanay waxaan ku soo gabagabeynaya anagu cidna aan baarayn cidna durmayno laakiin hawsha gobolka Sool dhulbahante Xuseen ayaa u matalo loo daba fadhiya waxaan leenahay madaxweynaha
iyo cidda qusayso war Xuseen kursiga annagu markaan dacweyno garan weyno annaga idin soo gudbanayna gabadha garabka haweenkii guri bay kireysatay kiradii lagama bixin wallahi caynkaas waxaan leenahay weynaysaa waxay xuquuqdeeda weynaysaa kuraasi ma hayso marba laba kursi bay garabka ku soo qaadaa meelaha ka keenta xaggee lagu arkaysaa soo kale ma waxaasaa dowladnimo ah ma waxaasaa cadaalada waxaan leenahay cadaaladda ilaahay musabix oo cadaaladda ilaahay waa Liibaan Axmed Ciise Liibaan Qaran wararka telefishinka Somali News Laascaanood